jiif caaqil yuusuf maxamed bulaale ayaa si adag uga hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka Sool sidoo kale jiif caaqilka ayaa ciidanka booliska Soomaaliland ku hambaliyeeyay sidii ay uga howlgaleen gaarigii shirkadda Omar ay lahayd oo ay ciidanka booliska Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigeen jiif caaqilka guud ee magaalada Togwajaale Yuusuf maxamed bulaale oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri anigoo jiif caaqil Yuusuf maxamed cabdi bulaale ah jiif caaqilka guud ee degmada Togwajaale waxaan aad iyo aad uga xunnahay shaqaaqada soo noqnoqotay gobolka Laascaanood iyadoo cadaawad ka jirto gobolka ismaamulka Puntland ee jaarka nahay haddana inay iyagu isku soo jeestaan ay iscunata waraabay iska celisa ay noqdaan waa wax aad iyo aad u liito sharaf xumaa waan ka xunnahay haddii aan nahay cuqaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan aad iyo aad uga hambalyeynaya ciidamada booliska ee amniga Jamhuuriyadda Soomaaliland sida fiican ay uga howlgaleen gaadhiga habeenka dhaweyd lagu afduubay bulcad ku afduubtay magaalada Hargeysa ka afduubtay ee Omar u lahaa sida fiican ay uga howlgaleen waa Khalid Maxamed Daahir telefishinka caalamiga ee STN magaalada Wajaale.